أرضيدا ما أنت قد جبنيسا شامعات بالدهر كبضا زيادة بقول سويتش أرضي قد جبنيسا شهادة كواد إدريجا يو شهادة لبعض مصرية وحنمان مرة روحها مليانة مالك وين سوق عليه يمريه وحبرشدين يدلالكين مخاطيكا دمانتي waxaan leeyahay hambalyo waxaan aad iyo aad iyagana ugu hambalyeynaya waalidiinta ardayda maanta qalin jabinaysa oo dhamaanteen waalid baana inta waalidnimada gaadhay waan garan karnaa nolosheena maalinka ilmaheenu qalin jabinayo dareenka inagu jira marka waalidiintan waxaan leeyahay dhamaantood hambalyo midhihii iyo dadaalkiini maanta aad quranaysaan kuwa faraxsan ee shahaadooyinka qaadanaya waa ardaydiini ciyaalkiini laakiin kuwa runtii shahaadadaas leh ee daba taagna ee ku dadaalayay ee noloshooda ka warhayay ee tilmaamta ku caawinayay idinka weeyaan marka waalidiinta guuleystana waxaan leeyahay hambalyo waxaad ogtihiin jaamacaduhu inay yihiin xarunta aqoonta ee fikrada cusub ee bini'aadamka bedela ay ka dhashaan sidoo tayada waxbarashada dalka Itoobiya maadaama hoos u dhacday 30 sano u dambeeyay isbedelkii markuu dhacayay jaamacaduhu waxay noqdeen meesha ay ka soo unkamaan isku dhaca iyo iskala sooc taas oo muujinaysay in tayada waxbarashada dalku ay aad u hooseysay sababtoo ah waxa la filayay qofku markuu wax barto jaamacadaha uu galo in diversity-ga ama kala duwanaanshaha inclusivity-ga isku dhexnoolaanshaha aragti ballaaran oo lagu maamulo ama lagu maareeyo in la yeelanayo sidoo waxay ahayd meel jaamacadu waxay noqdeen meelihii ugu nuglaa ee dhibaatooyinkii dhexmariyay shucuubaha kala duwan ay ka qarxeen ase ahaatee deegaankeenu arintaas uu ka bedelaa jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabdaar waxay labadooduba ahaayeen hooy dhammaan ardaydu ay ku dareemaysay nabadgelyo ay maar si fiican wax ugu badanayeen kolkol dhacdooyin iyo aragtiyo xun ma jiraan laba oran karo laakiin si guud waxay ahayd runtii imtixaan laga soo gudbo wanaagsan baa haddana waxaan ardayda u sheegayaa adduunka meel walba waa isku dhexnool yahay inuu dalka Itoobiya qoomiyada fara badan baan nahay meel kasta waa lagu nool yahay wada noolaanshaha isdhexgalka wada joogu waa xadaarad weey cabsi ma adduunku wuxuu u socdaa wada noolaanshaha iyo wax qabsiga marka inaad idinku hormood u noqotaan kuwa fahansiya dadka in wada noolaanshuhu waxa daaradii ardayda maanta halkan joogtay Qabdaar joogta magaalada Qabdaar waxay u soo kordhiyeen dhaqaale u soo kordhinayaan aqoon bay u soo kordhinayaan xadaarad ay u soo kordhinayaan marka arrimaha noocaas ay kulligeeda ku baraarugsanaataan ardaydu oo wanaag iyo walaalnimo aad muujisaan yaa la idinka rabaa mar kale maanta waa maalinkiini aad farxi lahaydeen waa maalinka abaalmarinta aad qaadan lahaydeen dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo